qof walba oo Soomaali ah waa uu iska jeclaan lahaa in lagu xiro halkan haddiiba qofka la xirayo. qof walba waxa uu jecel yahay xorriyadda iyo inuu isagu ismaamulo. weliba dadkeenna ayaa u badan in la iska jecel yahay jaantaar roganta iyo meel aan amar la kala qaadanayn. laakiin xabsigani waa uu ka duwan yahay xabsiyada adduunka oo idil. weligaa ma maqashay xabsi uu maxbuusku ismaamulayo. laakiin xisaabta ku darso oo xorriyadda iyo ismaamulku sida aad u malaynaysid ma aha. aan ku weydiiye, horay jiim ma u gashay, birana ma u qaadqaaday, mase qaadatay koorso ku saabsan difaac nafsiga? waayo waa dariiqa keli ah ee aad ku badbaadi karto marka aad ku nooshahay xabsigan, maadaama dadka kula nool ay yihiin amaba ay u badan yihiin khaatiliin, dad soo laayay kuwaasi oo naf in ay gooyaan waxba aysan ugu fadhiyin. xabsigan ha ka filin inuu askari uu ku ciqaabo, laakiin ciqaabta ugu xun waxaa ku marinaya qof maxbuus ah oo adiga kula mid ah oo laga yaabo in aad maalmo yar kaga soo horraysay jeelka amaba uu kaaga soo horreeyey. dhinac qofku waa ka xor oo wakaa ismaamulaya, dhinacna cadaab ayaad kaga sugan tahay oo waxaa maalin walba beerka kaa garaacaya nin asaagaa ah oo isa soo dhisay marba haddii gacan la iskula tegayo oo aan hub la heli karaynin. ku darso oo waa la isku daawadaa lagaana celin maayo. waa meel aan walaal iga qaban laga aqoon iyo cid ku caawisa xitaa haddii dagaalka lagugu jebiyo oo dhulka lagu dhigo. maamulka ayaa faraha ka qaaday oo dusha ka ilaashada, mana jirto faragelin gudaha ah. marka la soo sheego in caawa qof halkan lagu dilay ayaa ciidanku ay yimaadaan oo meydka ay ka qaadaan, la ismana weydiiyo yaa dilay, maxaa yeelay kan dilka geystay ma jirto meel halkan ka xun oo la geyn lahaa, sababtoo ah waxa uu dhex fadhiyaa hoyga loogu talagalay dadka dembiyada gala. waa qof is-og inuusan meel kale u socon ama ugu yaraan 50 sano uu ku xukuman yahay ama xabsi daa'in qoorta loo geliyey. sidaa daraaddeed wax kasta ayuu qofka samayn karaa. maxaabiista inta badan lama soo saaro, cuntada ayaa meelo daaqada ah looga soo daadiyaa si ay u karsadaan. iyaga ayaa cuntadooda karsada oo ismaamula, biyuhuna waa kuwa la heli karo oo soconaya. qorrax waxaa la arkayaa marka la gaaro maalinta Axadda. waxaa loo ogol yahay qorraxda inay arkaan 2 saacadood oo qura toddobaadka oo dhan. taliya Asafado waa ninka dusha ka maamula xabsigan, isaga iyo 5 xabsi oo kale oo ku yaala magaalada La Paz San Pedro. isagu waa kan ugu weyn uguna halista badan. waa xabsiga dadka looga maara waayey dilalka iyo daroogada dalka Bolivia la geliyo. San Pedro waa xabsiga fowdada ah ee dalka Bolivia. waa xabsi qof kasta oo Bolivian ah haddii lagu soo qaado uu gacmaha taagayo, maxaa yeelay kooxaha daroogada iyo tuugada geysta dhaca iyo dilalka ayaa goor horeba falal amni darro ah ka waday magaalada caasimadda ah iyo nawaaxigeeda. 85% dilalka deegaanka ka dhacay waxa ay la xiriiraan daroogo, yacni iibsade iyo isku qabsiga lacagta ka soo baxda oo ah mid si ba'an loogu reeqmo marka la isku laayo. maxaabiista cusub ee lagu soo dhex tuura tuugada iyo dilaaga ayaa naxdin la dhaca. nin kasta oo balaayo isu haystay kolkii uu beled ka joogay waxa uu noqonayaa bikh. delegados waa magaca loo yaqaano horjoogo kasta oo madax u ah koox maxaabiisa. qofka la saaxiiba unbaa badbaadi kara, amaba aan si kale u dhige waad ku qasban tahay in aad xiriir wanaagsan aad la leedahay kuwa ugu khatarta badan ee birta calashada gaaskana cabba ee ku sugan xabsigan. kan ugu yar inta dilaaga ah ayaa sheegay in uu khaarajiyey 4 qof, inkasta oo ay jiraan tuugo aan weligood qof dilin laakiin hanti fara badani ay ku maqan tahay. waa 2,000 oo maxbuus oo xul ah, yacni xagga dembiilanimada kaliya waxaa kor joogteeya 20 askari oo aan wax shaqo ah ku lahayn gudaha iyo waxa ka socda. kaliya waxa ay maamulaan dadka soo booqanaya iyo cuntada la siinaya oo keliya. ma leh wax awood ah oo ay ku koontaroolaan marka gudaha la joogo, maxaa yeelay maxaabiista waxaa ka mid ah qaar soo laayay askar boolisa. inta badan kaamiradaha ammaanka ayaa lagala socdaa. marmar ayaa albaabka lagu soo garaacaa korjoogtada bannaanka joogta iyaga oo lagu yidhaahdo meydkaa jiita, waa mid xalay la dilay. marmar ayaa gudaha waxaa ka dilaaca mudaharaad iyo qalalaase, laakiin askartu dibadda ayay ka daawadaan. keliya waxay ilaaliyaan baxsashada iyo in aan mudaharaadku ku fidin magaalada. waa xabsi ay maxaabiistu ay maamulaan oo aan dowladda gacanta ugu jirin. xabsigani waa kan ugu weyn magaalada La Paz ee xarunta dalka Bolivia. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. Bulqaas Media ayaad nagala socotaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay beejka Bulqaas Media, ha ilaawin in aad like iyo follow aadna soo tiraahdo. haddiise aad tahay macmiil soo noqday, sidoo kale ha ilaawin in muuqaalkan aad sheergarayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan, halkaasina ay wax uga bartaan.
wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca kommentiska. aad ayaad u mahadsan tihiin. rabbiga ha idinla jiro. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.